واقف مشرنا على الحرة وددرنا على الحرة عمرين واقف أمبلانس تعالوا أمبلانس دواتاس bal waxaad inooga sheekaysaa inta ogaalkaaga ah shakhsiyaadka aad garanaysid ee halkan ku hoos jira wallaahi horto meesha hadda wax la dareemi karaa ma jiro dadkii gudaha ku jiraan waa aragteen saddexda dabaq uu isku soo wada dumay laakiin haddeertaan waxaa kaloo ku jiro nabadoonkii imaamkii beelaha banaadiriga cusmaan oo hadda la rabo in laga soo saaro meesha gurigana waa gurigii xildhibaanada waaye biibaqle fi gurigooda marka waa mucjiso rabbaani waa wax hadda dhacay aan u jeedno ilaahay waxaan ka baryaynaa in ummadda meesha ku jirto ilaahay ka soo samata bixiyo gudoomiye ma guriga caadi buu u dumay maadaama guryihii qadiimiga ahaa ee ku yaalla degmada xamarweyne uu ka mid ahaa mise cilad dhanka korontada ayaa jirtay sababtuu u dumay wallaahi ilaa hadda wax ma sheegi karno wuxuu u dumay ilaa iyo arrintaa waa u jeeddaan idinkaaba kor taaganbo arrintaas waxaa la ogaan doonaa markii haddeertaan dadka laga soo bixiy annaga hadda argagaxaan waa argagaxsannahaybo aadaan u argagaxsannahay sababtoo shacab badanaa gudaha noogaga jiro shacabkaas intaan ka soo samata bixinaynaan sugaynaa oo keliya kaasi wuxuu ahaa cumar shariif jeeg oo ahaa guddoomiyihii hore ee degmada xamarweyne waxaa ila taagan mid ka mid a dadka goobjoogga ahaa oo markii halkan wax ay dhacayeen ku sugnaa goobta guriga uu ku dumayey soo dhowow magacaaga iyo waxaad caawa aragtay bismillahi raxmaani raxiim magacayga waa sida cali mawlid nagey ku sugan maaragtay goobta ee ka dhacay masiibadan rabbaaniga ah waxaan marayey markaas meesha dabaqa ka soo dumay maaragtay gobolka banaadir gaar ahaan degmada xamarweyne waxaa durbadii arkay dabaqii shanta biyaana ka koobnaa dad badan ay ku dhex jireen xataa hadalkooda aan maqlayay markaa meesha maraya dhabbada isla markiina waxaan arkay meeshii oo wada duntay kadibna gadaal markaan u arkayna waxaan arkay meeshii oo cidla ah aad iyo aadaan ugu murugoonnay kadibna waxaa imaaday guddoomiyihii xamarweyne iyo taliyihii ku-xigeenka guud ayaa imaaday marka haddana waxaa laga soo saaray dhaawacyadii iyo maaragtay dadka ku geeriyooday wiilala maaragtay waa hagaag daawadayaal waxaa la soo samata bixinayaa qaarka dambe oo laga xasaray dhagaxaan weyn muddo badan walwax aasaasaan oo sidii xalimiya sida xal waa hal ilaahay yaa qaarka dambe oo laga xasaray dhagaxaan weyn muddo badan walwax aasaasaan oo sidii xalimiya sida xal waa hal ilaahay yaa